shalay afartii maxaan ku radaa subaxnimo ama aroornimo ama 10 saac salaad subax intaan la gaarin ay maxaan ku radaa nimanka khawaarij isku dayeen inay soo weeraraan Bariiri iyo Awdheegle runtii Bariiri dagaal waa ka dhacay ma inkareyno laakiin Awdheegle waa ku halaagsameen nimankii baabuur bullet proof noociisa la yaabay ay maxaan ku radaa ismiidaamo u soo adeegsadeen salaliga markii waxay rabeen maxaan ku radaa ismiidaaminta waa markii ugu horreysay baabuur bullet proof oo waxyaalaha qarxa ka soo buuxiyeen oo u soo adeegsan rabeen maxaan ku radaa buundada Awdheegle inay gooyaan sida buundada Bariiri hadda kor ay u gooyeen oo kale salaliga ciidamada xoogga dalka geesiyaasha ka hortagay waa la fashilay asoo soo gaarin buundada la qarxiyay sabina la dhacay gaarigii salaliga marka maxaan ku radaa halkaasi meedkooda balqan shalay waxaan helnay maxaan ku radaa ilaa 52 meed oo nimanka argixisada webiga ilaa iyo raadkooda la raacay ilaa Caanoley Shaangara meel walba la tagay ilaa iyo Burgaasha ilaa Guusha war Saleemaal ilaa iyo maxaan ku radaa Daar es Salaam meedkoodii inta la soo ri 123 ay marayaan nimankii maxaan ku radaa argixisada al-shabaab baadiyaha waxa laga soo sheegaya qaar badan oo maxaan ku radaa meedkooda meesha loogu cararay qaar geedaha ku hoos jiraan marka salay ciidamada waa ugu hambalyeynayna taariikhday dhigeen shalay tan kale waxay huubiyaan la dhacay maxaan ku radaa sayna u gurman ciidamada jooga Sabiid iyo Caanoole ayadana maxaan ku radaa waxba kuma gaarin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya shacabkeena waxba kuma gaarin janaal saas oo kale ayada dhowr saal bay maxaa huubiyal ku soo gumeen marka intaas oo dhan maxaan ku radaa waa status laakiin way eedeen ayagana ayagay ku hartay marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa ugu hambalyeynayna waxaan leenahay awguuriyo waxaan ka codsanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa iyo madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo taliyaha ciidanka lugta Generaal Maxamed Biixi Tahliil iyo dhammaan maxaan ku radaa in la dalacsiyo ciidankaas geesiyaasha oo magac maamuus u soo jiideen shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed tan kale waxaan salaan ka wadaa madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo yiri iga gaarsii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan kuwa safka hore ku jira tan kale waxaan leenahay waxaan u tacsiyeynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed raggii ku baxay difaaca wadanka iyo gobolka Shabeelle Hoose shalay waxaan leenahay ilaahay jannada firdaws ha ka waraabiyo ilaahay maxaan ku radaa Samiir Imaan ha ka siiyo ehelkooda iyo qaraabadooda maxaan ku radaa dawladda federaalkaba waxaan leenahay waa garab taaganahay waxa annaga aan geel u qalayno oo u dhex taaganahay gobolka Shabeelle Hoose oo hadda waxaan taaganahay maxaan ku radaa difaacyada maxaan ku radaa afgooy hadda oo waxaan ka nimay Awdheegle ilaa Bariiran hadda ka nimay kormeerana lugaheena ku soconnaa salaliga marka waxaan leenahay in ciidamada maxaan ku radaa dhiirigelin iyo dhis maxaan ku radaa ay ka qaadeen shacabka Soomaaliyeed waa garab taagan bii iyo caanay la garab taagan caleemo qoyan iyo maxaan ku radaa iyo wixii loo baahnaa marka waxaan leenahay nimanka argagixisada waa niijaban hadii ba ciidan ajnabi uu soo ku dhex jiro ciidamada Soomaaliya asaasiisa ka dhicin karaan ma maleyn jirin ayaga inay ka soo daataan darbiyo waxay rabaan samaysan jireen ma jirto maanta darsiga Awdheegle iyo Bariiri ka raacay taas hala fiiriyo salaliga baraha bulshada waxaan u hambalyeynaa maxaan ku radaa wariyaasha sharafta leh sida TV-ga dalsan oo kale sida idaacadda maxaan ku radaa wariyaha gobolka Shabeelle Hoose iyo TV-ga qaranka iyo TV-yaasha kale bahda maxaan ku radaa warbaahinta oo dhanba say maxaan ku radaa nimanka loo soo bannaan dhigay meedadkooda ayagoo bilqan 3 amiir ku jirta kuwa Awdheegle ku dhintay amiirkii istidlaaca iyo amiirkii maxaan ku radaa howlgelinta iyo amiirka maxaan ku radaa ar-ra'yi islaamiga calanka u waday saddexda maxaan ku meedkood meeshu yaal waad u jeedeen salay marka wiilasheena Soomaaliyeed oo nimanka argixisada qaldeen maskaxda iyo qalbiga ka xadeen waxa leena walaalayaal isa soo dhiiba diyaarana kuwii hore oo aan cafinay kulli waa saraakiil waa janano waa korneelo waa gudoomiye degmo waa maamulo waa maxasafiiro waa qusulo waa raaxay ku nool yihiin kulli maxaan ku radaa waa shaqeeyaan gobolka Shabeelle Hoose xilliga madaxweynaha hore maxaan ku radaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa soo dhiibtay 480 maxaan ku radaa 3 nin oo al-shabaab kulli waa wada shaqeeyaan hadda qof baaga muddo ma jiro yaa la dubay yaa la googooyay yaa la dilay yaa la xiray yaa xiran ma jirto sharaf iyo karaama ay ka qaadeen walaalayaal intay goortay wiil Soomaaliyeed oo dhinta nagama baxo ee isa soo dhiiba waalidin cafina dawladda federaalka dawladda koonfur diyaar u nahay taliyaasha waa kuwan garabkayga taliye maxaa ku simaa taliyaha qaybta booliska gobolka taliye ku xiga qaybta booliska gobolka Shabeelle waa kana Colonel Ali Michael taliyihii guutada maxaan ku radaa guutada koowaad ee maxaa qaybta 12 Abriil Colonel Xasan Jaamic waa kana ninka ilaa Qoryool ilaa Baraaw ilaa Shalambood ilaa Saliini oo taariikhdeeda soo dhigay waa kana